waxaa magaalada Masqat ee dalkaasi Cumaan ku geeriyooday xalay sareeyagaas Axmed Saleebaan Cabdalle Dafle oo kamid ahaa shantii golaha sare ee kacaankii dawladii oo madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre Ilaahay u naxariistay waxaanu taariikh nololeedkiisa wax ka weydiinay wariye sare Cismaan Cabdinuur Xaashi oo soo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta ITC Khaatumo Cismaan Cabdinuur Xaashi markii hore waa ku salaamay marka xiga bal waxaad nooga sheegaysaa taariikhdii Axmed Saleebaan Cabdalle maadaama aad ahayd aqoonyahan sare oo macluumaadka dadka madaxdii hore wax ka yaqaana soo dhawo mudane bismillaah wa dhawaay aado martay asiiro Axmed Saleebaan Cabdalle Ilaahay u naxariisto oo ku dhashay magaalada Sheekh sanadkii 1930 halkaas uu ka bilaabay waxbarashada Quraanka iyo tacliinta ilaa dugsiga dhexe kadibna waxa uu tagay waddanka Masar oo ku soo qaatay secondary-ga ama dugsiga sare markii uu soo dhameeyay waxa loo diray isaga iyo dhalinyaro kale oo dugsiga sare ka baxday Ingiriiska oo leeyahay lagu soo tababaray jaamacadda militariga caanka ee Sandhurst شريحة كيف كسر نقطة ذلك وأنا حل كيبو ريو قبضي وهاتلية أورور عيدا كده كنا مقالة كايو بركد ما دافر إلى هذا كيف حلو بكلام مثلا مال عيدا كا حاجة وقوي كلمة سومالي سيل عيو تليك ها وأزي بركد تقال كافر هذا كيف عاي إنه سبي إياب له لما فوصل بدورة وقلت بخضي أو تري حاجة عيدا كيف بيو كابي كحدود نصو صارنا ayaa uu ku bilaabay dibadda boosooyinkii boqorayay iyagoo holcayay ku daadsan ciidamada Itoobiya habashadiina dagaal bay jireen way carartay way la jaran laayeen ilaa iyo hadda reer galbeedka iyo reer bariga Ruushka Mareykanba hubka noocaas meesha Soomaaliya ka heshay Axmed Saleebaan Cabdalle Ilaahay u naxariistay waxa uu soo qabtay xilal kala gedisan waxaana ka mid ahaa xilkii wasiirka wasaaradda qorsheynta hadana badugada mid ah taasay waa 1927 waayo markii hore ayuu haystay hoggaanka sirdoonka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasina waa ishaashay inuu soo ciidanka nabad sugidda 1927 oo noqotay ugu horeeyay seeska uguda inta badan uu qaadan jiray ardayda dugsiyada sare ka soo baxay oo qoyo badna isagoo qada ay ku hadlaana dawladda dana soo kale ay dadkood ku xulan jiray marka Axmed Saleebaan Cabdalle oo aanin agar shakhsiyadiisa marka uu ka sheekeeyo nin afgaaban oo xishood badan waxaana lagu yaqaanay samir iyo doogaad badan وعند سياسات كسور جدا عند رأس من ما كمان قصة المنع ولا نترين وعند كان هذه العصابة مصلة والدنيا صوبة لماذا تعال مكا الله مكا وزيرك وزارة الخصائص كل يسقى المغرب يستكي ولا جنب الدليل لما تسكت دي وهايستي ففي نوع كنت ميت سرع حوجان روحها ورجيت النيوز في كاميرا كسب هاي هو وراي محمد سياد برا قفك كليه بديل كرا وأحمد سليمان عبدالله ومرهان كقبا قبيل تحوق وين تراوس كذا شيء الأخوي قال قبيل تقول بدل يساعنا سياسيين مرهان كان بالباري كرا محمد سياد برا وسوق حياته سوقرن تاسو خلق الجيشي وبيجي ذاك هايستي كذب له أحمد وكذا هيكي ولا أولي بيت تري كوريا جيسي يا لكن يتري أنا بس كنت أتكلم مع وزارة الخصوصية وأنا جا كنت جرين متفاوضين وزارة وأنا لقيت على جينا هيكي اللي بوزين وأحمد سليمان وزارة لا هو كان يعرف شنو دول كان شكل محمد سليمان هذا وجين وهيبت لي بوها أنا خليل كلاينو أو وزير كوشنا iyo Ahmed Silayo oo wasiirka ganacsiga markii Ahmed laga qaaday nabadgudda qorsheynta loo bedelay wasiir looga dhigay labada heerkiisa laga qaaday waxa lagu magacaabay labadaba la taliyaha wasiirka qorsheynta adeegga labada dalka way ka baxsadeen markii ay laga qaaday Axmed Saleebaan Cabdalle wuxuu ahaa markii dambe wasiirka arrimaha gudaha iyo muddadeer ahaa markii dambe waxa loo magacaabay waxa uu noqday ogayaha guud ee xisbiga dowladda gacanka Soomaaliyeed 1989 xilligaas oo dowladda galbeedka gaar ahaan Talyaaniga iyo Mareykanka oo Soomaaliya saadoo ku ahaa ay ku dirqiyeen inuu xisbiya furo iyo hanaanka dimuqraadiyadda
radio muqdisho ka shaqeeyo maalin kasta waxay idaacadda live looga jeedin jiray ama si toos ah dad madaxa oo wasiiro xildhibaano oo laga wareysanayo habka iyo hanaanka cusub ee Soomaalidu qaatay xisbiyada badan ee loo yaqaano multi-party system dabada maxamed siyaad wuxuu uga tanaasulay isaga oo uga degay xisbiga dowladda kacaanka Soomaaliyeed oo uga dhigay gudoomiyaha xisbiga dowladda kacaanka Soomaaliyeed si uu Ahmed Salmaan xisbiyada dhalanaya cusub uga tirtamo oo markaas xisbigaas ayuu Ahmed Siyaad ku wareejiyay xilkiisii أصلاً معارض كي كان أنا نجي مع البريسر ورتي بقول يا أفراد شو ممكن حكومها الدولة هو كشوف كذا معارض كها بركي مريجي تلياني يعني قبل كي سوالي خصوصي يعني طبعاً يعني مرة دو رجي بدلي أو ما تبارك سيسا وبلاري هناك حسبير بدل أو حسب كان ولا كيس حسيلي ده حسبير سمعت صوت طبعا أصلاً سواء إلى يعني كذا هذا ما ينصلها لما أنا أمين كرو ملايين في الحلقة عمد سلمان عبد الله أنت دمه وتجلا غرماء كرهنا ودمه عماني بلجم وبكاسي ويودي له بدل باسمور كسير باسمور كصوماليا أي موجود في واحد تجينا شو أمانتنا عماني يو بلجم بقى مكانه نكاسي نكاسي بقى تاريخ ماله وعلوه خصوصا إنه هانين تحت الماله أو حيد الماله أو كل ماله أو ديسيا أو أفسانة لكن قاعد يسوق يسوق عندنا لما هيو الصوماليات يعيش الصوماليات يتبت صوماليات ويصير عن بارين نسا وكعبان نسا بيانين نسا وهو في كلية تذكر بسوق عقلية إنه هاومن صوماليات وصوماليات من واحد هناك وجوهين لما مبدأ وجوهين وكلية يسوق إسلام المرة يدانا كيس إسلام كلها بقوانا وقرتي عثمان عبد النور حاشي وضمات سنتها حاسك يا عرورت وكتجي بل تاسنا واحد يرنو قدر حاسك وحوي وصوب محمد يا براء مروش رفله وإنه شهي صدق قبلهم أيوة أحمد لما يقول بقى كجيله الرئيس ولا من الفايل ولا كذي من السياد ولا ما كجيله الرئيس أحمد صدق أبو الله واحد الآن إلى اللي عروره بقى شغال كعبلوط أيوة كجتي أو أي صوبا أيوة أدوك كوبا سلامي أحمد سليمان عبد الله إلهي هون حارس أحمد سليمان عبد الله عثمان عبد النور حاشي أو أد بعد كوجم هاد علينا يا تاريخ ذا فوق ونكسن سيدا أدو صوب بدكتي ووريه هراء عثمان عبد النور حاشي أو يسوي كل سجن مجال العاصمة ديسي خاطمة إلا سعانو دسلما كان قراء وريه أقويهن دمان به علمك أقونتا دينتا إيه علمك لبض بيسكو درسدي وكم هاد علينا يا فيلسوفي عثمان عبد النور حاشي هذه يا دوما ستاي لا يقرأنا يكون جاهلي أنا هذه يا دوما ستاي مدنا قبانك تجي تودالا بدنا تقبانك قرأي تشيغو كحرنا أبي وانيقو ياسين فيتنا ويدك لكي سيداي أمان الله يسبق الدنبي أو حيصله أحمد سليمان عبد الله إلهي سبحانه وتعالى ونحريستو جنبي سبحانه هكيو ودهان نقويسكي إغرابة ديبا سمري إيمان الله كسي تصبحية ترادو كفرنايد راقي تيركي تباها أدقاي